رمضان مبارك كوني ريكوردز رمضان مبارك لكل مسلم. السلام عليكم أصحابتي وين السلام يا رمضان مبارك. رمضان مبارك إلى خير كيسا نفسية أصحابتي وحنا دمانتي وحين إلهي رمضان ونكسن. maanta qisadeeni baart 2 ayaa noo wadaa, qisadii oo ka turjumaysa Nafisa iyo Yaasir qaybteeni labaad. sidoo kale Nafisa waxay ahayd gabar markasta jecel in ay maqashiiso waxyaabaha ay aad ugu jeceshahay iyo waxyaabaha ay aad ugu neceb tahay, iyadoo taas ku muujinaysa igula wadaagtay. bartamihii sanadkii 2008 ayaa waxay labada qoys ee aan ka dhalanay isku afgarteen in aan isguursano, waxaana ku aqal galnay magaalada Dubai. dalka aan soo wada joognay muddo dhan 3 bilood aan ku soo wada qaadanay nolol macaan. iyadoo oo xaaladda ay sidaas tahay, waxaan dib ugu soo laabanay magaalada London aan markii hore wada joognay. markii uu guurkeena kasoo wareegay 4 bilood oo uur ah ayaa waxaa dhacday in aan isbeddel ballaaran kala kulmo Nafiso. markasta aan Nafiso weydiiyo sababaha keenay isbeddelka xoogga leh ayaa waxay igu dhihi jirtay, saaxiib, niyad kuuma hayo ee iska kay fasax oo orodo guurso oo naag kale oo niyadda ku hayso. hadalkaas waan la yaabay, laakiin sidaas kuma quusanine. iyada oo sidaas ay tahay ayaa waxaan maalmo ka mid ah ayaan Nafiso ku iri, walaaley, bal ii sheeg wax say u jiraan. markaas ayay igu tiri orod oo la soo baashaal naagtii kale oo aniga aan wax naag aan qabin ama aan la wada sheekaysanin naag dhan, ayay igu tiri ereygaas. waxaana isku argay isbeddel aan dareemay in adduunka dhan igu soo yaraaday. hadalka ay igu tiri Nafiso aan marna aan ka filanaynin ereygaas, balse saas aan uguma herino. Nafiso waxay igu tiri, hadalka xagga ku joojiyo, mar dambana waxyaalaha ana i dhibay hana igu dhihin. kuma begin mana ku rabi, naag kala guurso, waana fasaxan tahay. asxaabta, marka idinka maxaa ka leedihiin labada qof oo jaceylka soo dhex martay oo qisadoodana ay halkaas ay joogto? marka maxaa dhiileed wax fikir oo ra'yigaaga dhinaca commentiga noogu soo reeb insha Allah. waxaa noo hirtay part 3 insha Allah. waxaan rajayn doonaa in aad ka faa'iidi doontaan. wixii faahfaahin oo oo commenti dhinaciisa noogu reeb insha Allah. like commentiga dhiirigelintana waa xaggeena insha Allah. waxaan leeyahay Ramadaan mubaarak, Ramadaan mubaarak.